Saddex nin oo walaalo ah oo hal mar wada qaatay diinta Islaamka isla markaana masjidka wada yimid si ay diinta u qaataan. أشهد أشهد أن أن لا لا إله إله إلا إلا الله الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول رسول الله. الله. Si aan u gudagalno muuqaalkan walaalay sar aragtidaada ka dhiiba sheergare oo nagu soo bir si saaxiibo badan u gaaro muuqaalkan adna aad u rukumato muuqaalada maalinlaha ah mahadsanidin badan. Saddexda nin ee walaalaha ah isla markaana u dhashay dalka Mareykanka amaba ah madow Mareykan dalkaasina ku nool ayaa u tagay mid ka mid ah masaajidda dacwada lagu faafiyo ee Mareykanka in ay qaataan diinta wanaagga iyo naxariista lagu kaamil yeelay ee Islaamka. Walaalahaas oo islaamay oo lagu kala magacaabo Chris, George iyo Nasir ayaa waxay hore u haysteen diinta Kirishtaanka, balse markii ay arkeen dadka Islaamka ah wanaagooda iyo diinta saxda ah ee kaliya dunida ka jirta in ay tahay diinta Islaamka, ayay go'aansadeen in ay islaamaan sida ay sheegeen. Waxa ay sidoo kale sheegeen in ay qayb weyn ka qaateen ku dhiirashadooda in ay qaataan diinta Islaamka. Rag iyo culummo ka tirsan masjidka ay diinta Islaamka ku qaateen shahaadadana loogu qabtay. Waxaa shahaatiinka loogu qabtay masjidka oo ay maamulkiisa gacanta ku hayaan culummo, sidoo kalena waxay culimmada masjidka ay ballan qaadeen in la bari doono diinta Islaamka, shuruucdeeda, waxa ka reeban, waxa u bannaan iyo sidoo kale arrin waliba oo la xiriirta diinta Islaamka iyo waxyaabaha inta badan aasaasiga ah. Kadib markii shahaatiinka loo qabta ayaa hal mar waxaa Allahu Akbar ku wada dhawaaqay jamaacada masjidka xilligaasi ku sugnaa. Markii shahaatiinka loo qabtay تكبير الله أكبر. So الحمد لله. saddexdan walaalaha ah ee soo islaamay iyadoo si weyn diinta Islaamka loogu soo dhaweeyay walaalaha soo muslimay, waxa ay sheegeen in aad iyo aad ugu faraxsan yihiin in ay qaataan diinta Islaamka, una mahad celinayaan culimmada iyo maamulka masjidka iyo dhammaan asxaabtii qaybta ka qaadatay soo islaamidooda iyo sidoo kale soo dhaweynta qiimaha badneed jamaacadii u sameysay. Culimada iyo jamaacada kale ee masjidka ayaa soo dhaweeyay walaalaha muslimka ah ee hortooda diinta Islaamka ku qaatay isla markaana masjidka u yimaadeen in ay soo muslimaan amaba diinta Islaamka qaataan, iyagoo mid mid xabadka u geliyay si ay u soo dhaweeyaan, sidoo kalena u muujiyeen wanaagga diinta Islaamka iyo marxabaynta ku dhisan walaalaha muslimiinta ah oo si weyn markaasi u soo dhaweeyeen. Sidoo kale waxa ay sheegeen in ay wehel dareemeen isla markaana dadka muslimka ah ay u arkaan in ay yihiin dad iyaga dhan ah walaalo, qaabka loo soo dhaweeyeyna ay u arkaan in ay yihiin walaalahood ay kala maqnaayeen balse haatan ay midoobeen. Walaalay sar muuqaalkan haddaad hore u saarin waxaanu kaa codsanaynaa inaad follow dhahdo page-kan oo aad nagu soo biirto si muuqaalada maalinlaha ah aad u rukumato. Mahadsanid mar kale.